carruurteena maanta aad bay u faraxsan yihiin farxadooduna ma ahan mid la soo koobi karo ma garanaysaa oo ma la socotaa inaysan carruurtu qaldin halkan su'aashaas oo ah waxaad carruurtu weydiisaa goormee waaye iida yacni arrimo noocaas oo kale ka wareyso waa su'aalaha ugu badan aysan qaldin carruurta marka carruurteena hadday faraxsan yihiin annaguna aan faraxsannahay dhammaan caalamkuna uu faraxsan yahay maxaa kuu diiday inaad faraxdo maxaa kuu diiday inaad la qaybsato ehelkaaga iyo asxaabtaada farxad waxaa jiro dad markaa aan heesan wax ay ku ciidaan waxaa jiro dad markaa ay wajahday xaaladda liidata ee adduunyo waa maalin caalamka oo idil faraxsan yahay inkastoo uu sanadkan yahay sanad ciqaab alle wato inkastoo uu sanadkan yahay sanad ciqaabtiisa wato waa sanadka kaliya ee wadamada qaar aysan masaajida ku tukan soonka marka ugu horeyso waxaa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah ina gaarsiiyay maalinkan aadka u farxada badan keena yar iyo keena weynba uu maanta faraxsan yahay kula dabaaldegayo keena maanta murugta ay ka muuqatay maanta ay farxad ka muuqato waa maalinka kaliya ay muslimiintu farxaan oo ay gaaladuna ay naxaan maadaama muslimiintu waxa ay ku farxayaan wax kale ma ahan waxa ay soo soomeen bil barakeysan Ramadaan waxa ay ku soo jireen safar aad u dheer oo abaalmarino ballaaran lagu bixinayo maantana ay taagan yihiin maalinka ay farxi lahaayeen waxa ay cunayaan waxa ay cabayaan oo ay ku faraxsan yihiin waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey meel walba caalamka ka joogtaan waxaan idin la qaybsanayaa farxadda ciida dhamaantiinba kullu caam wa antum biqayr